بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أغيرت ودي السلام يا إذا الأهانتين بقى. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ورفرح الله وروين بنسدا مانت الصومالاي سودا وادا الصومالي دغلاي يي wax maqli meesaan waxna qaada meesaan wala bilay soo dhawaada way markabkii sahminta shidaalka Soomaaliya ee ka socday dalka Turkiga ee waday sahminta shidaalka ayaa wuxuu soo saaray ama laga helayaa warweyn haddaba Soomaalida warkaasi horta waa u fiican yahay dhagahooda laakiin ka faa'iideysan maayaan dad waxa weeye ilaahay ku imtixaamay balaayo dad gacanta horsanayo oo tugsanayo ee dad tuuga oo waxay dhacaan bay raadinayaan kii xil qabtaa iyo kii wax loo dhibaa iyo kii maryar loo dhibaaba wuxuu xado oo kaliya ayuu ka shaqeynayaa laakiin uma jeedo khayraadkan dalkiisa ceegaaga sidii loo maareyn lahay dadkan looga baahitiin lahay ma yaqaanaan markabkii daan soo daadega sheekadiisa wuxuu sahmiyay meel yar hadda waa meel yar markii badda Soomaaliya la fiiriya xeebta dheer ee Afrika ugu dheer markii la eega meel yar ayuu sahmiyay bishaaro shirkadda isgaarsiinta Somtel oo soo kordhisay adeega Kaafiya Plus kaasoo aad ka heli kartid $0.5 ilaa iyo $50 haddaba macaamiil ku shuba $0.5 oo hel 1.5 GB oo ay la socoto 70 daqiiqo iyo 50 fariin qoraaleed ku shuba $1 oo hel 3 GB oo ay la socoto 140 daqiiqo iyo 50 fariin qoraaleed sidoo kale macaamiil ku shuba $2 oo hel 6 GB oo ay la socoto 280 daqiiqo iyo 100 fariin qoraaleed ku shuba $5 oo hel 13 GB iyo bar oo ay la socoto 600 daqiiqo iyo 200 fariin qoraaleed sidoo kale macaamiil ku shubo $10 oo hel 30 GB oo ay la socoto 1200 daqiiqo iyo 300 fariin qoraaleed ku shubo $20 oo hel 70 GB oo ay la socoto 2400 oo daqiiqo iyo 300 SMS sidoo kale macaamiil ku shubo $50 oo hel 150 GB oo ay la socoto 6000 oo daqiiqo iyo 300 SMS adeega Kaafiya Plus waxaad ugu shuban kartaa idahab xidig 1 4 gees airtime xidig 200 gees reseller xidig 300 gees shirkadda isgaarsiinta Somtel oo aad ka heli karto internet qiimo jaban tayo sare leh misna la isku haleyn karo markaasoo wuxuu ugu tagay baloogyo gaaska dabiiciga ah ee qaaliga ah ee sidaa u ceegaaga Soomaaliya horta sahmin ma jirin oo waa la ogaay inay Soomaaliya khayraadka badeeda uu ka buuxo waa la ogaay laakiin waa la xaqiijinay markabkan wuxuu soo arkay oo helay baloogyo fara badan oo yacni aqliga bini'aadanka diidaya waxa ku jira oo gaas ah oo aan inaba suurtagal ahayn ayuu indhaha ku dhuftay mar allaala markay Turkidii arkeen waa ay yaabeen afka gacanta saartay oo madaxa gacmaha saartay oo waxay yiraahdeen war in ma adeerayaal war dalka kan ee saboolka ah ee baahida dilatay yaa suurtagal ma aha waxaan inay ku dhex jiraan ay haystaan oo ay leeyihiin ayagana ay ka baahan yihiin waa mashaqo marka runtii marka Soomaaliya waxaa wargeys Turkida wuxuu soo qoray Soomaaliya in ay ka mid tahay 10 dal ee dunida ugu horeeya dhanka gaaska dabiiciga ah hadda gaas oo kaliya ma aha Soomaaliya wax laga helay batroolkii oilidii sidii saas u dhex eegaagaan dadkii ka faa'iideysan lahay marka dadkii ka faa'iideysan lahay aaway waa dal aan dad lahayn runtii dal aan dad lahayn weeye Turkidii marka waa ay yaabeen waxay yiraahdeen suurtagal ma waxaan in Soomaali ay saan ahaato oo ay ka baahnaato oo dawladdu saan ay tahay oo shacabkoodii oo sidaan u yahay waxaana ay haystaan
wax suuragal ma aha yidhaahdeen wax suuragal ma aha sidee wax u jiraan ordigaanay la hadleen yidhaahdeen war ordigaanow war dadka aad lehed walaalaheen waa soomaalida oo aad u gargaarayso garab taagneed war dadka dunida ugu taajirsan waaye ay yidhahdeen dadka dunida ugu taajirsan weeye waxay haystaan waa la ogyahay yidhi waxaas marka soomaaliya marka waxaa lagu soo egtareeyey niman siyaasiyiin isku sheegayo oo dowlado carbeed dhaqaale ka qaato iyo kooxda argagixisada ah oo ayagana dowlado carbeed lacag ka qaata oo yacni loogu talagalay soomaaliya in aysan arkin waxa ilaahay ku manaystay la maaweeliyo la marar xabaabiyo balaayo lagu furo dagaallo iyo waxaan loo baahnayn ay ku jirto ayaa loogu talagalay 10 dal markii lagu leeyahay dunida yacni ugu horeeya yaa weeye waa sacuudiga waa imaaraadka waa dubai waa maraykanka waa ruushka waa jarmalka fiiri kuwaas ayaad la mid tahay maanta oo weliba xataa adiga waxaad eedahan yihiin oo hal meeloo yar oo keliya oo la helay ayaa intaa laga helay maxaa u malaynaysaa baddaa dheer oo 3,363 kilomitir ah maxaad u malaynaysaa barrinkiina uu ku sii dhiman yahay war dalkan ujeedaan waa dal aan dad lahayn xaqiiqatan waxaa loogu talagalay soomaaliya inay dhibtaan ku jirto oo aysan barwaaqada arag adduunka marka maxaa la yidhi soomaaliya ayaa la soo wada aadayaa wargeeska wuxuu soo qoray soomaaliya ayaa loo wada baxsanayaa adduunka soo qoray xaqiiqatan halkaasaa la iska wada xaadirinayaa haye annaga marka maanta dalkeenna waa kasii ordaynaa sooma waa kasii tahriibaynaa qarashaan ku bixinaynaa dhibaataan maraynaa nafteenna haligaynaa waddamo ayaa u soconnaa kaleetoo shisheeye ah dalkeennina waa kanaa waxaana ceegaagaa lagu leeyahay dalkan marka waa loogu talagalay in dhibaatadan uu ku jira xaqiiqatan kooxdan argagixisada arkaysaan oo ku soo dabagambanaya diinta iyo kitaabka alle oo beenka sheegayaan waxa weeye waa wax la soo diray carab ayaana waxaa dhan ka dambayso arkaysaan carabta arkaysaan wax ka xaasisan caalamka ma jiraan wax ka xaasisan kuwaan maanta jira boqortooyooyinka sheeganayo ma jiraan xaqiiqatan nimanka argagixisada dhaqaalaha ayagaa siiyo ayagayna u shaqeeyaan annagana waxayna leeyihiin diin baan wadnaayo kitaab baan wadnaayo shareeca rabnaa in lagu dhaqmo walaadeerow gacali waxaad leenahay argagixisooy dalkan waa dal islaam ah dadkiisuna waa islaam fac ka fac ayay muslimiin ahaayeen dad maanta diinta la gaarsiinaya ma aha waxa ay wadaan waa been iyo huuhaa naga daaya idin leenahay adeerow gacali qof kastaa wuxuu ilaahay hortagayaa asoo keligii ah camalkiisii asaga unbaa hortagayo cidda idin wakiilata yaa waaye cid idin wakiilata male diintan ilaahay waa dhammaystir waa waasac cid ay maanta u baahan tahay male ilaahayna dadkaan mar u sheegay qofkii raacaya iyo qofkii ka tagaya asee u taallaa lakum diinakum waliya diini maxaa adinka dhibaatada idin gelinayo maxay tahay danta idinkugu jirto inaad dad maalin kasta ummad laysaan oo tirahdaan diin baan wadnaa shareecaan wadnaa waryaada beenta iyo kadaabnimada ummadda ka daaya allahaada u shaqayso rabbigaada adiga waxaa hortagaysaa ayadoon cidna aanu ku helin